dhismaha jidadka halbowlaha u ah bulshada iyo gaadiidka ee magaalada Baydhabo iyo shaqo abuurka dhalinyarada muruqmaalka ah ee ku nool Baydhabo waa barnaamijka mashruuca burburinta iyo dhismaha wadooyinka oo ay hirgeliyeen maamulka gobolka Baayo kan degmada Baydhabo. halkan waa mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Baydhabo waxaa ka soconaya dhismaha mashruuca wadooyinka magaalada Baydhabo oo muddooyinkii u dambeeyay si aad loogu dareemay gudaha magaalada Baydhabo. mashruucan ayaa waxaa fulinaya maamulka gobolka Baayo sidoo kale degmada Baydhabo. wadadan ayaa qayb ka ah wadooyinka ugu muhiimsan oo xilligan ay ka socdaan shaqada lixaad kale dhismaha wadada oo aad arki kartaan quruxda iyo sidoo kale bilicda maamulka gobolka iyo degmadu ay soo saareen. dhismaha wadadan waxay fursad u noqotay qaar ka mid ah dhalinyarada muruqmaalka ah waxaana xilligii subaxii hore ay u soo shaqo tagaan dhismaha wadooyinka Baydhabo oo mashruucaasi ay fulinayo maamulka gobolka iyo sidoo kale maamulka degmada Baydhabo. qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Baydhabo oo muruqmaalka ah oo subax kasta u soo shaqo taga dhismaha wadooyinka Baydhabo ayaa telefishinka Jinaawka ugu warbixiyay sida shaqadu ay tahay iyo sida ay u arkaan waxaana ay sheegeen in tani ay fursad u tahay ayna u baahan yihiin in mashruucyada kala duwan oo dhalinyarada fursad looga abuurayo ay ka wada faa'iideystaan. xilligan waxaan ku dhex jira qaar ka mid ah dhalinyarada ee ku howlan dhismaha wadooyinka Baydhabo sidoo kalena ay ka faa'iideyaan in muruqooda ay ugu deeqaan dhismaha jidadka magaalada Baydhabo. waxay la hadleen telefishinka Jinaawka. magacay wali waa Maxamed Mursalo maana jidkan la ilaalinay shaqo doon la shaqo abuur ilaalinay in ku sameey isku shaqaysadahayn shaqo inuu ku qaadahayn maanan wadankii boo ilaalinay wadadayna dadkii baa muhiim ah saastaraadkii waan tan shaqayahayn marka eed ilaalinay shaqo abuur saasay yaasnin sameey dhalinyaro badan ayna marka shaqo doon marka reedada saasa halkan yahay inkastoo muruqmaalka markii hore shaqada eedan yar ay tahay laakiin hadda jidkan fursada aragaysan jidka fursada ilaalinay aan aragahayna dirbiya kale isku shaqaysadaani atan ilaalinay jidka moosoo beesatan antana hani farsami etingana farsamiyaqaan etin koyana eri saasa shaqa abuurna ninka samee nolol aadi ilaalinay joornaata aadi ya qaadahay nolol maalmeed okay anoo maaleero maxaa Abdullaahi oo kumid dhalinyarta oo jiitay dhisayaan maasha Allah kulay si magaalada in badan isin qaardan may buu kulay wadada oo ishbid galaasi ti harajaad galaasi ti suuq sariiro galaasi maasha Allah kulay dhamaantii kulay wala suubi hadda maalin may bilaaway oo maalin oo talaada ee bilaawi kulay maalintu afar nin ee wadada wadna maasha Allah kulay may buu in badan ku faa'iideysan oo mashruucan qobadi oo kulay shaqo abuurku walba waan ku faa'iidni maasha Allah kulay mayba magaalada shaqo jarta shaqo oo ay dhisme jarta laakiin shaqada tan hayn in shaqadii oo magaalada mayba isku hal ma tan oo mayba walaarna faqad leh waan horumarna leh bilaad magaalada kulay hasaaraayta kulay intaas horta kulay ku faa'iideysan mashruucan watan qobadi oo hay'adda Nisa Foundation iyo hay'adda Norway iyo dawladda koonfur galbeed iyo horeeyay dawladda dhaxay qobadan maasha Allah kulay wala ku faa'iideeyay maasha Allah niyo kulay una tola qawaaqib oo shaqo ku aragnay majar kulay dadkii oo barnaamijyo niin wadan iyo unun kulay halqaad oo need filan oo dhaxay kulay waa tola uqdada oo dhataan ma ku dheen kulay barnaamijka si filan ka bilaawdi atin si filan ku soo atan may barajaan insha Allah intii ilaahay si filan intii dhamaan si dhamaasir كل مقالة بلادنا وبلا ساتق وشقين وبلا magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa ka soconaya mashruuca dhismaha wadooyinka iyo dayactirkooda taasi oo ka qayb qaadanaysa soo saarista bilicda magaalada. Cabdinaasir Musharraf magaalada Baydhabo.